بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الأخوات في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ما هتسكال تبارك وتعالى نعم كيسية من كيسان تركوك لهين كمال كيسية لما يسترنان تيسان لمنان تلهين. الله تبارك وتعالى وكو أمانيه وانكو مهسين وانا واجب إن لغو مهديو ولغو أمانه. انت كدب قويسك يقرقو aad buu muhiim u yahay. waa asaaska koobaad iyo bulkeetiga koobaad ee uu mujtamacu ka dhismo wey. marka hore waa nin gooni ah iyo haweeney gooni ah ama inan gooni ah. kadib markay kulmaan guri bay wada dhisayaan. gurigaa dhismay iyo guryo kaloo soo raaca ayaa mujtamaca iyo bulshadu ka dhismaan. waa meesha jiilka iyo generationada dambe kacaya, hadday wiilal yihiin iyo hadday gabdho yihiinba madrasada ugu horreysay ka soo baxaan wey. waa meesha lagu barbaariyo jiilka ummadda hogaamiya ee leh aqoon-yahan leh, ee culimo leh, ee madax leh, ee nooc walba leh. meeshay ka soo baxaan iyo dugsiga ugu horreeya soo saara waa guriga. gurigu waa meesha mujtamaca deganaanshihiisa iyo xasiloonidiisa asaas u ah. haddii gurigu u hallaabo mujtamacu waa hallaysan yahay. mujtamaca inta qoysaskiisu is-haystaan oo dhisan yihiin waa mujtamac dhisan. mar haddii qoysasku burburaan mujtamacu waa burbursan yahay. sidaas daraaddeed ahmiyaddu weyn bay leedahay. diinteennuna mudnaan bay siisay qoyska iyo dhisidiisa iyo sidii gurigu u noqon lahaa guri dayasho mudan, guri nadiif ah, guri labada ruuxee wada joogaayay ay ku nasan yihiin, ay ku xasilnoo yihiin oo ku raaxaystaan. ilmaha ay dhalaan ay mustaqbalkooda ku dhisaan, ayagana ku nastaan oo ku raaxaystaan. guri deganaansho iyo xasilooni leh wuxuu ku imaan karayaa diinteenna inoo sheegtay. waad ogsootihiin walaalayaal, allah tabaaraka wa tacaala isaga aadamaha yaqaana. alaa yaclamu man khalaqa wahuwa allatiifu alkhabiir. see buusan u aqoonin? isagaaba abuuray. xubnihiisa xubin xubin iyo unug unug buu jidhka uga warhayaa rabbi tabaaraka wa tacaala. dabeecaddiisuu garanayaa. waxa wanaajiye iyo waxa halleeyuu kala yaqaanaa. waxa qalbigiisu ku degay oo ku liibaanayay wuxuu ku khasaarayo alle kala yaqaanaa. sidaas daraaddeed shuruucda rabbi dejiyey ee ugu talagalay guriga iyo qoyska wax ka fiicani ma jiro. nidaamyo faylasuuf uu dejiyey, bini aadan uu malmaluuqay, gaal kumaba sii jiray uusa samaystay oo uu yidhi qoysku u fiican yahay, macno weyn ma laha. rabbigeen tabaaraka wa tacaala oo waxa maqanna og, waxa soo socda og, wixii tegay og, innaga ina abuuray. allahaasaa tabaaraka wa tacaala shuruuc inoo dejiyey, asbaab inoo jideeyey. haddii aynu raacno qoysaskeennu ay noqonayaan meel lagu nasto oo lagu naalloodo oo lagu raaxaysto oo labada isqabta ee guriga dhisay iyo inta la joogtaba meel ay ku barwaaqoobaan. sidaasuu noqon karaya.
waqtigoo kooban daraadii haddii aan toos u gadagalo asbaab baa jirta guriga uu ku noqon karo guri mithaali ah loo baahan yahay hooyo kasta inay ogaato inan kasta inay ogaato gabadh kasta inay ogaato nin kasta inuu ogaado wiil kasta inuu barto si guryaha looga dhigo meel dayasho mudan oo qiimo leh asbaabta waxaa ka mid ah si kooban haddaan u tilmaamo kow an yakuuna al-ikhtiyaaru al-awwal cala asaasi ad-diini wal-khuluq marka ugu horreysay guriga la dhisayo waxa la isku dooranayo waa inuu yahay diin iyo akhlaaq markaad doonayso cidda nolosha kula wadaagaysa dumar baa tahay ninka nolosha kula wadaagaya markaad doonayso inaad doorato waa inaad marka koobaad ka fiiriso diintiisa iyo akhlaaqdiisa wakadalika ninka haweenayda nolosha la wadaagaysaay marka koobaad waa inuu ka fiiriyo diintii akhlaaqda laana iyaga waxay yiraahdeen waxay yihiin raasamaalka wax raandhiis leh oo hadhaya waa ruuxa diintiisa iyo akhlaaqdiisa waxa guriga saameynaya waa diintii akhlaaqda inta haday wax dheer yihiin oo ruuxu la dheeriyay ama haweentu la dheer tahay ama ninku la dheer yahay taasi waa siyaado waxaaga wax lagu darwa macnaha nabigeenu tilmaamay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi markuu leeyahay haweenka afar mid baa loo guursadaa sida caadiga ah loogu xishaa qurux ay leedahay dhaban baa loogu xishaa xoolo ay leedahay baa loogu xishaa sharaf iyo reer wanaagsan ay ka soo jeedaan loogu xishaa diinteeda loogu xishaa afarta markuu nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri fadfar bidaati diini taribad yadak diinta mudnaanta si inta kale haday wax dheer yihiin oo wax kale la wadato ama socoto dib male laakiin diinta midda ku guuleysay rasuulku sallallahu alayhi wasallam xadiidkii kalena waa kii rasuulku sallallahu alayhi wasallam markuu ka hadlayay dumarka yaa loo guurinayay si guursanayaan wuxuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam hadduu idin yimaado nin aad diintiisa iyo akhlaaqdiisa ku kalsoontihiin u guuriya yani gabadhiyay guursanaysaa baa laga hadlay ninkay nolosha la wadaagaysa yuuye waa nin diin iyo akhlaaq midaasa marka asaaska koobaad hadday labada ruux diin iyo akhlaaq leeyihiin waa asaaskii guriga ku dhismi lahaa waa nidaamkii guriga lagu maamuli lahaa waa shuruucdii guriga kala hagi lahayd asaaska horaba haddii laga ilduufo oo ikhtiyaarka iyo doorashadu halowdo markaasi guriga dhib badan baa soo gaadhay wax badanna gurigu waa waayaya qodobka labaad waxa weeye markii guriga la dhisayo arooska iyo xafladiisa iyo damaashaadka iyo asaaska waa in alla ka cabsi lagu saleeyo la iska ilaaliyo wixii shariicada ilaahay khilaafsan الله تبارك وتعالى وحيري أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم لبقري ومنا اللعب سيدي سلقو سلايي أو لقو أساس مدنا معصية يدنب لقو أساسي بو الله تبارك وتعالى كلا صاعي أو كلا قاضي isma gaari karaan isku midna ma ah guriga ilaahay macsiyadiisa iyo dambiga lagu aasaasay oo sadhiga looga dhigay xafladii baa shariicada lagu khilaafay arooskii baa lagu khilaafay gurigii baa lagu khilaafay gooshii baa lagu khilaafay guri ilaahay sharcigiisa iyo khilaaf allaba lagu saleeyay liibaani maayo laguna degi maayo laguna xasili maayo xayeelay markaaba gurigii waxa dhex dhigtay bambo ayaa dhex dhigtan bambo qarxaysa dambi iyo aafaad ku bilowda arrintaasina waxaa laga yaabaa in ay saamayso xidhiidhka labadiinna gurigii iyo wada noolaanshihii inay saamayso carruurtii guriga ka imaanaysa iyo midhihii la doonayay in meesha ay ka beermaan dunuubtaasi waxaa laga yaabaa in ay keento inuu gurigu burburo
sidaas daraadeed asaaska guriga waa in alla ka cabsi lagu saleeyo wixii ilaahay baneeyay waxaan ahayn waa in laga ilaaliyo arooska iyo dhismaha guriga iyo yaani marka la yagleelayo guriga oo labada ruux ay guriga dhisanayaan waa qodob iyadana muhiim ah qodobka saddexaad waxa weeye guriyaha waxaa lagu dhisaa bayna almawaddati warahma labada ruux ee wada jooga marka kalgacayl iyo jacayl bay isu hayaan marna waxay ku wada dhaqmayaan naxariis in la isu naxariisto oo la isu turo oo la isu danqado oo ruuxba ruuxa kaleeto uu uga naxariisto wixii aan munaasib ahayn marna kalgacayl iyo jacayl baa labada qalbi isugu jiro kaasuu gurigu ku salaysan yahay hagayo hogaaminay oo calaaqadu marka waa calaaqa aad u sareysa mar waa kalgacayl marna waa naxariis معناها واحد المامس آيات ربي تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة الله تبارك وتعالى وحليها آياته سوحا كمذا علامات كي أستامها إلهي أودي سكتسي قدرتي سوحا كمذا إنو إذن أبوري نفتين إذن كأبوري أزواجا حاسس رقي dumar buu abuuray dumarkiina rag buu abuuray labadan jinsi waxa la isugu abuuray litaskunu ilayha inaad ku xasishaan waa xasil waa deganaansho waa raaxo ya sidaas daraadeed baa waxaa la yidhaahdaa labada ruux haweenayduna markay ninkeeda la joogto bay nolosheeda ugu degantahay ninkuna markuu xaaskiisa la joogo nolosha ugu degan yahay litaskunu ilayha wa haduu yahay guri hagaagsan markaas rabbi wuxuu tabaaraka wa tacaala waja'ala baynakum mawaddatan wa rahma alla wuxuu dhexdiina dhigay kalgacayl iyo naxariis bimaana marna waa la isjecel yahay marna waa la isu naxariisanaya xataa hadii jacaylkii waxoogaa uu daciifo oo cunsurkii jacaylkii kalgacaylka isbedel ku yimaado waa inaan meesha laga waayin naxariis aan laga waayin waxa la sheegaa athar waxa la wariyaa Umar radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa khalifatu ar-rashid ayaa waxa uu yimid ninba uu yimid ninka uu wuxuu yiri Umar wuxuu ku leeyahay waqtigii Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa waxaan dhila ayaa ninba xaaskiisii wuxuu ku yiri nashadtuki billah hal tuhibbini ilaahi baan kugu dhaariyay oon kugu weydiinay ma jeceshahay buu ku yiri yuu ku leeyahay xaaskiisi ilaahan kugu dhaariyay ma jeceshahay buu ku yiri markaas waxay tiri amma id nashadtani billahi fala haddaad ilaahay ugu dhaarisay jawaabtu waa maya haddaadan idhaarin lahayn waxoogaa si kaleeto waxaa u dhigi lahaa hadalka waa u dhigi lahaa laakiin haddayba dhaar meesha soo gashay kuma jecli bay tiri cajaa'ib badan ninkii waa soo baxay oo markaasuu Umar u yimid Umar Khattab radiyallahu ta'ala anhu markaasuu u cidiray iyadii hala keeno islaanta tiri ninkeeda ku tiri kuma jecli hala keeno waa la keeno markaas wuxuu ku yiri أنت التي تقولين لزوجك لا أحبك ما أديقا هوين إذا ننك هذه كتشري كبتشعر مركز واحد تري يا أمير المؤمنين نشدني بالله أفأكذب إلهي يقول داريي ما بيبا شيقا تري نكن ساقا هذا الكمال حنك بالله ميل خلالك بالله محا قارك هنا مركورب هدو إلهي يقول داريي ما بيبا نو شيقا تري run baan iska sheegay kuma jecli baan markaas wuxuu yiri nacam fakdibi haawi been u sheeg soo kuma dhaarin oo kuma dhin ma jecesha been u sheeg buu ku yiri oo waxa tiraahdaa waa ku jecel adoo been leeyahay soo ku dhici kartaa waa laana wax weeyaan
sida xadiidka nabiga ku sugan sallallahu alayhi wasallam xaaladda gurigu ka maarmi waayo ninku xaaladaha loo ogol yahay oo haweenaydiisa been u sheegi karo haweenaydana sidoo kale riwaayadka xadiidka qaar ka mid ah tilmaamayaan markuu gurigu ka maarmi waayo marmar baa loo ruqseeyay inay been sheegto hadiiba gurigii ku dumahayaba namay jeceshahay war waan ku jeclahay iska dhig shil mushkila ya been lagaaga qori maayo beena xaaladaha ay banaayin bay ka mid marka wuxuu ku yidhi fakdibihi been u sheeg buuri markaasa wuxuu yidhi cumar radi allahu tacaala canhu ardaa laysa kullu lbuyuuti tubna cala alxubbi buuri guryaha oo dhan jacayl laguma dhisa buuri walaakina annaasa yatacaasharuuna bilislaami waalaxsaab dadku marar fara badan ayagoon isjeclayn ayay haddana islaamnimo iyo naxariis iyo ixsaan ku wada joogaan buuri saas daraaddeed adar jacaylku laazima ah mar gurigu waa kalgacayl marna waa naxariis waa macnaha macnad allah tilmaamay tabaaraka wa tacaala mawaddatan wa raxma aad bay hadda arrintaasi u badan tahayoo su-aalaha badan ee noo yimaaday ka mid tahay sheekhow ninkaygu ima jecla sidaas daraaddeed ninaan i jeclayn anigu la joogi maayo maxaa kalood ka sheeganaysaa sheekhsiisa kale waa fiican yahay biilka wuu bixiyaa guri fiican buu dejiyey ilmaha waa u roon yahay aniga waa ii roon yahay waa gacan furan yahay maasha allah laakiin imaba jeclaba bacdina hadda ninaan i jeclayn seeluu la joogayaa waa war heedhe jacayl keliya guryuhu kuma socdaane hawl kalaa jirtee laysa kullu lbuyuuti tubna cala alxubbi guryahoo dhan jacayl kuma dhisna macnaha inaynu fahanno waa laga maarmaanoo sax labada ruux inay isu muujiyaan waxa qalbigooda ku jiraay way fiicanta nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka la weydiiyo dadka yaad ugu jeceshahay caaishuu dhihi jiray yaad ugu jeceshahay caaishuu dhihi jiray waa xaaskiisa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka in la muujiyo dhib ma leh laakiin hadduu meesha ka baxo gurigu u dumi maaye naxariis iyo howlo kaliya ixsaan baa jira oo guryuhu ku dhisnaanaya waa arrin iyadana laga maarmaano qodobka afraadi waxa weeye oo guryaha tusaalaha ah ee wanaagsan ee mithaaliga ah asbaabteeda ka mida waxa weeye athiqa almutabaadala bayna atarafayn labada dhinac ee gurigu ka dhaxeeyo waa ninka iyo xaaskiisa waa inay kalsooni ka dhaxayso way waa inay isku kalsoon yihiin waa inay kala shakisnayn haddii shaki meesha soo galo oo ninkuna xaaskiisa uu kalsoonida kala laabto iyaduna kalsoonida kala laabato oo la kala shakiyo isagii wuxuu ka shakisan yahay islaantani way wareegaysataa maxay la wareegtaa kaale ma qarafaysataa asagiina wuxuu leeyahay mar alla markaan dhaqaaqaba guriga waa laysoo dabamaraa waswaas buu qabaa naa maxay tahay raadkan meeshan maray meeshan waxbaan ku arkay tuhum buu qabaa waswaas waa cudur ayadiina sidoo kaleeto kalsooni ma qabto ninkeeda kuma kalsoona oo balaayay ka rumaysanta guri aan labada ruuxee wada dhistay kalsooni dhex oolin oo shaki iyo waswaas dhex yaallo laguma degana gurigaas ma xasiloona sidaas daraaddeed waa laga maarmaan in la abuuro isku kalsooni iyo hiqa bayniya labada ruux dhexdooda kalsooni inay timaado shareecadeennu waxay aada u fogaysay in ruuxa meel bilaasha laga tuhmo yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kaiira min aldan ina bacda aldanni ismun walaa tajasasuu waar dadka mu'miniinta ahow ka fogaada in badan oo tuhmada ka mida tuhmada qaarkeed iyo malaha qaarkii waa dembi inaad ruuxu iska malayso iska tuhmto ya markaase haddana waxaa la daba dhigay xataa hadday tuhma ku soo gasho qalbigaaga shaytaan wax ku soo rido tuhmo kugu rido tuhmadii ha baadhbaadhin oo waan xaqiijinayaa ha dhihi walaa tajasasuu tajasusku waa tatabuca waay
wixii kugu soo dhacay shaydaan qalbigaaga ku riday taa tiraada waa ka salgaadhaya waa xaqiijinaya dabagala sameynay isaga had markii horeba tuhmaya waswaaskii iyo tuhmadii baan hadana xaqiijinaya dabagal baan sameynaya waa baaraya waa leeno diiday xadiidkii nabiguna wuxuu ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wa idha dhanantum fala tuhaqqiqu haddii tuhma idin gasho ha xaqiijinina iska daaya isaga had يا بالله الروح وأذوق الرميسان إنه يسسحر هيا سيء النولانة نينكن يقول لي يا إسلام تنبأ سحرت يدي وحيلة وفلفلو بلايو إيه الحرق ورساد وضع النولانة سنكرسوني دي آوة يدي وحي الرميسان تهي نينكن يدعاد معها سيدا نكما قمانيه إسلام فربضان بقى قرصان ودورك أوجر marba hotel dabagal dad bay daba dhigtaa jaajuusiin bay u samaysaa xagee buu galaa maalintii xagee buu ka shaqeeyaa war heedhe war ma kuu sheega war jiraay cakaaru imana wax qarsoon ma jiree aayar tartiibtaada tuhmada iska dayo waswaaska shaydaantiga sheekadiisa haddaad tuhumtana waxba ha baadhbaadhine iska tartiibso shareecadu saasay leedahay kalsoonidaa labada ruux ay qabaan haddayna laba kalsooni isku qaba ahayn gurigaasi deganaansho waa ka lumaya gurigii qalbigiibaa wax galaya qalbigu hadduu wax galana waa meeshii guriga waa meeshii aadamuhu uu ka nasan lahaa waa nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi ina allaha yubgidu alghiirata fii gayri riiba waxaa jira masayrka iyo ficilada mid ilaahay jecel yahay iyo mid ilaahay neceb yahay qiirada iyo masayrka ilaahay neceb yahay waxa weeye ayadoo wax laga shakiyaba aysan meesha oolin in uu ruuxu uun iska masayro iska qiiroodo yaa baadhis iyo dagaal uu isaga jiro wax keenayana meesha maba yaalaba taa ilaahay waa neceb yahay tabaaraka wa tacaala u fiirsada nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markii xaadithadii been abuuradka ee xaaskiisa lagu sameeyey caaisha umulmu'miniin radia allahu tacaala canhuma qiso dheer dhacdo dheer bay ahayd oo munaafiqiin iyo kuwo khariban ayaa xaaskii nebiga sal alla alay wasalam waxay ku sheegeen inay sinaysatay walciyaadu billah arrintaasi magaaladii madiinay ku faaftay ma maqasheen hee caaisha oo xaaskii nebiga ahayd baa waxaasi ku dhacdo wasakhowday nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh arrintii iyada ahayd hal bil oo kaamil ah waxyina ma soo degin caddeeya arrintiina magaaladii bay ku jirtaa waa lagu wareeray caaisha naftu inay ka dhacdayba ku sigatay guriga hooyadeed bay ku urursatay xaalad adag baa la galay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh xaaladda magaaladu wareersanta xaaskiisiina tuumo iyo shaki la geliyey wuxuu rasuulku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh fawallaahi maa calimtu calaa ahli khayraa ilaahay baan ku dhaartaye reerkaygiiyo qoyskayga waxaan khayr ahayn kuma ogi ya xaaskayga waa aqaanaa ninka lagu tuhunsan yahayna waa aqaanaa khayr waxaan ahayn reerkayga ku malayn maaye war ninkaas yaa iga qabta waa ninkii beenta abaabulay oo abuuray marka maa calimtu calaa ahli ilaa khayran reerkayga waxaan khayr ahayn kuma ogi waa kalsooni ya waa kalsoonidaasi marka labada ruux waa inay dhex taallo markii la doonayo gurigu inuu noqdo guri miaali ah guri lagu daydo oo deganoonshiya xasilooni leh qodobka shanaadi waxa weeyaan guryaha iyo qoysasku waxayna ka maarmin aliltizaam bimanhaji altaaca waalqawaama gurigu waa inuu kala dambayn leeyahay labada ruuxee gurigu waa u dhisan yahay ninkiiyo xaaskiisa marwada guriga iska leh waa inay jidkeeda taqaano waa inay taqaano jidkeeda waa inay taqaano xaqeeda waa inay taqaano mas-uuliyaddeeda waa inay jidkeeda qabsato
ninkan odayga ah reerka uu u dhisan yahayna asaguna waa inuu garanayo waajibkiisa labada dariiq ee shariicadu kala samaysay nin walba jidkiisa inuu qabsado waay haddii guriguba nidaam iyo kala dambeynba uusan lahayn yaa la amri yaa amar qaada yaa la adeeci yaa la adeecayn waaba la isku haystaaba kala dambeyn ma leh guri aan kala dambeyn lahayn wax soconaya maaha ilaahay tabaaraka wa tacaala aadamaha aada u yaqaanaa wuxuu inoo sheegay aadamuhu waa kaain ijtimaaci bini aadamku sidiisaba ruux keligii u noolaan kara ma jiro waa inuu dad la noolaado meeshii laba ruux iyo ka badan isugu timaado dan iyo waxna ka dhaxeeyaanna waa in kala dambeyn loo sameeyo nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa ka yidhi haddii 3 ruux iyo ka badan safraan waa inay amiir samaystaan waa socodta waa safar waa inay kala dambeyn leeyihiin waa idinka arkay cibaadadii salaadii kala dambeyn baa laynoo sameeyey imaam iyo dadkii intooda kale ku xidhan qoyskii kala dambeyn baa loo sameeyey arrijaalu qawwaamuuna cala annisaa ninkii baa guriga oday iyo mas-uul looga dhigay haweenaydii iyo marwadii guriga la wadaagaysana waxaa lagu yidhi fasaalixaatu qaanitaat dumarka kuwooda wanaagsan ee qiimaha leh waa kuwa allahoodana ateeca ninkoodana ateeca markaasay shariicadu waxay gaadhsiisay kala dambeynta noocaasa siday asaas u taho guryuhu ayna uga maarmin heer waxaa la gaadhsiiyey haweenaydu ninkeeda haddaysan ateecin in ilaahay u cadhoonayo sababtu maxay tahay in xataa jannadeedii lagu xidho la yidhaahdo haweenayda ninkeeda ateecda ayaa janno gelaysa sababtu waxaa weeye gurigii kala dambeyn la-aan ma dhisnaan karayo ma socon karta waxa la yidhaahdo ana amiirun wa anta amiir faman yasuuq alximaar adiguna madax baa tahay anna madax baan ahaye dee yaa dameerka hor qaadayoo kaxaynay haddaad rabto adiguna inaad dameerka korkiisa fuusho oo isagu hoggaanka qabto isaguna sidoo kale uu rabo see la yeela waa sidaas daraaddeed guryuhu waxay qiimo ku leeyihiin wax la yidhahdo kala dambeyn waa mid macnaha qur-aanka kariimku tilmaamay oo rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala alrijaalu qawwaamuuna cala annisaa haweentana la yidhi ninkaaga ka dambe wixii aan shareecada khilaafsanayn amarkiisa yeel asagana la yidhi gurigii adaa mas-uulka ee guriga toosi oo hagaaji oo adigaa berri lagaala xisaabtamaya la yidhi waay nidaamkaasi markii ummadaha qaarkood ay lumiyeen gaaladan caddaankaa soomaalida arkin ee hadda ku faana inay hormareen inay ilbaxeen inay adduunka gaadheen heer lagu daydo gaaladan caddaanka ee sheegtaa soomaalidaan arkin markay qodobkaas burburiyeen oo ay yidhaahdeen ninka iyo haweentiisu guriga waa ku siman yihiin maamulkiisa madaxna isuma aha markay yidhaahdeen waxaa ka dhalatay inay guryihii burburaan haweentiina gooni u kadeedanto ninkiina gooni u kadeedmo guryahoodiina burburaan la isku rafaado kala orod baa ka dhacay laakiin diinteenna xikmadda rabbi u fiirso tabaaraka wa tacaala kala dambayntan guriga loo sameeyey hooyadiina sacaado iyo liibaan bay siinaysaa iyo xasilooni odaygii gurigana xasilooni iyo deganaanshay siinaysaa waa la isku liibaanaya waana laga maarmaan guriga inuu kala dambayn yeesho taa macnaheedu ma aha inuu ninku ku amar taagleeya haweenta ma aha macnaheedu ma aha inuu noqdo dictator sida alla siduu isagu raba yeela ma aha macnaheedu wax weeyaan sida rabbi mu'miniinta ku tilmaamay wa amruhum shuuraa baynahum mu'miniinta oo dhan arrinkoodu waa tashi waa la tashadaa ra'yigaa la celceliyaa waa la wadaagaa marka la wada tashado kadibna go-aan waa in la qaato go-aanku marka waa inuu soo fulo guriga mas-uuliyadda amarka isagaa laakiin haweentii caqli bay leedahay waa bini aadan aqoon bay leedahay laga yaabo isagayna ka caqli badan tahay waa suurtagal waxaa la yidhi la tasho tashi
يعلن يوضا تشي لكن markay noqoto fulin haweentu waa inay ninkeeda ka dambayso guryaha sidaas ay ku gaaraan liibaan haday noqon weydo de waxa iimaanaysa in guriga lagu dagaalamo in guriga mar walba uu ka taagnaado wax la yiraahdo yaani wax weeye fawda ka taagnaato in qoorta la isugu jiro ayadiina uma roona isagii uma roona ilmihii uma roona taasina waa qodob muhiim ah qodobka xiga ayuu wuxuu yahay التعاون على ذكر الله تبارك وتعالى غوريغو وحو كل بانايو كدغايو كحصلا ان لبد الروح غوريغا دستي اسو كالميستان الهي ذكريس حسك الله تبارك وتعالى الهي طاعدس محايلي قلوبت ادمه وحي كحصلا والهي ذكريس غوريهنا وحي كن نولادان والهي ذكريس غوري الهي لوغو خصيو iyo غوري ان الهي لوغو خصينين بختي iyo noolay isulamidi guri ilaahay lagu xusayo quraan lagu akhrinayo daaca ka socoto lagu tukanayo waa noolya guri aan ilaahay lagu xusaynin oo macaasi iyo dunuub ka socotana waa bakhti saas daradeed marka labada ruux ay isu kaashadaan ilaahay daacadiisa isu kaashadaan ilaahay tabaaraka wa tacaala quluubtoodu isjeclaysiinaya ilaahay tabaaraka wa tacaala xasilooni u dhaxal siinaya الله تبارك وتعالى غوري غودي بو وحو كدغيا غوري بركيسن لوغا دغيا ذكرك الهي با بركيني الا بذكر الله تطمئن القلوب ذكر الهي با قلوبته كحسيشا سيد رب الله تبارك وتعالى نبينا وحا كسغن صلوات ربي وسلام عليه انه يري رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وايقظ امراته فصلت الله ان حريستو نين هبينكي انتو هردده ككعاي تكدي markuu tukaday kadibna xaaskiisa kiciyay iyadiina ay tukatay haday kici weydana intuu biyo soo qaado wajiga kaga sayra say hurdada uga kacay allah u naxariista haweeney habeenkii kacday oo tukatay oo ninkeedii kicisay oo isaguna tukaday oo haduu kici waayo intay biyo soo qaado wajiga kaga sayra u fiirsada خير بالسوق عشان يا سوما ضاع على السوق عشان يا قولي قاسي وقولي نحريسة دوا إلا النبي يقول كعبري رحم الله اللهم نحريس تبو وقولي نحريس يحسلوني كسو دكتوي قولي ضاع إله اللي سوق عشان قرآن اللي سوق عشان يو صلاة اللي سوق عشان يو ذكر ربي اللي سوق عشان يو وناق اللي يسفر يو حمانة اللي يسكرب يو ليسوا النصيحين يو قولي قاسي وقولي بركة سوا حديث كاسي أحمد يغير كبا صوصاري واحد من حديث أبي هريرة وحين التلماميسا قريه وحي كبرى كوبان إلهي ذكرك سيحسكي سإني لبضر روح سوكا الميستان وكذلك إني عرضت وضونا سيدا كتر بيوت قضبك تضبع دي وحي ولا ليال وكاني كرا يقريه إنه إني نقضان قريه مثالي وقيمة بضنا وكحسن له إنت أنا أدونك تشوفنا آخر ما إنت إنا قارن وحكم ذا تنقية البيت من المحرمات الشرعية guriga in laga nadiifiyo laga daahiriyo wixii shariicadu diiday waxyaalo badan oo waxa jira shayaadiintu soo raacdo oo guriyaha dhex yaal guriga ka saara wixii muusik ka daaya guriyaha heesaha guriyaha ka daaya sawirada foosha xun ee qaawan guriyaha ka daaya qashinkaasi waxa soo raaca shayaadiinta soo raaca gurigii wuxuu noqonayaa qashin qub shayaadiintu degtuu noqonaya laana sida nabigeena ka sugan sallallahu alayhi wasallam meesha qashinka iyo macaasidu taalo waa xira shayaadiintu isugu timaado way shayaadiintu hoy u tahay saas daradeed markaan musqusha galayno waxaynu nidaahnaa allahumma inni a'uudhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith لأن ماشى مسقولها يملها قشن كشياطين تدقن جن كدقن إلهي بعد كم ينقل يسامر كوري جاي هدو قشن قب نقض مرك ومال معاصي الذنوب يبلايا كسعتاء النقطة إلهي تبارك وتعالى دبوا كلينيه توات كنت لقلي لبدا روحنا يقولي جودا سيدا رالي وقع يقولي كنوع عسنا إلهي واسكت درايا إلهي تبارك وتعالى يقول قرتي سكلينيه waxaa dunuubta waxyaalaha ka dhasha
إيرادك أي كلام بكمت نبي قال نوح عليه صلوات ربي وسلام عليه والذي نفس محمد بيده ما تواد اثنان ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما إلهي قال نفت النبي محمد قعنتي سأي كتشرتان كل أرتيب رسولك صلى الله عليه وسلم الله بالروح اسمتش على ذا أول لك لقيو الله بالروح استعلان شري كالقعيد لحيا لي اسم النعان إلا هذا اسنعان نعيبك وحا كينا دنبي ومتكود قلي يا متكود با دنبي قلي دنبي وقلا وحا كنا شيء إنه قلبي سساميو كو أبورو نعي وريركي سنعبيه أما إسلانتي سيبا قلبي دي وحا لقليي إني نعضه إلا قلوبت إلهي بقى عنتكو هي القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء قلبي يدا إلهي قعنتي سيكوتشران سيدو دونون أرك رقا روحوا دونو كوتشعليسين روحوا دونون وكودري الله تبارك وتعالى أود بقولي سيداس دراد الدنب اللقالي با كينا دادكو إنا إسنعان قريوه إنا قبتان إن لقو كالقحو إن قريها محوها يحسلوني دي الراحة كبابادو إن قريوها أي نقدان سلع لقو وضو النولادو يرفاد إنت بدن وحا كينا والذنوب تلقاليو هدي قريقاقي أي ذنوبتي معاصدي كسعطو إلهي باللقو محوها لقو عاصينيو حسلوني وفوقتها مركاه ساس دراد قريها كسارة كفوقية كإلالية وحي الدين إلهي كوريمانيا شرعك كوريمانيا قدرك حقاي وحوي هاي أو سيديدات قويسك حسلوني دي سوحا كمدا الرمار دوره هالحديث وحديث النبي قلنا كسو عروري صلوات ربي والسلام على حديث سعد بن أبي وقاص غيرك النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفر الرموت 4 من السعادة أفر الرموت وحي كمديه ليبانتي كمديه المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء هويني ونكسن إني قريقة شوفتوي حاس وطاهنك وكذلك حاسكو إني ننكيد ونكسي والسعادية الليبان قريقو إنو يا قري واسع وعديدي أنا هين والله با درس كاقو إني درس ونكسيهين ودرس كوسن كوكو حماني قاديد ونكسن وكل ليليان وإساقنا كو قادي كرا إناد هايساتو أفرتاسي والليبان تأدون كوا أفرنا النبي يقول صلى الله عليه وسلم والشقاوة والسلع هي الرفاد هي النبوي ودرس كونو كوكو حماضو حاسكو إني نينك كحماضو أما نينك حاسكو إني نينكو كحماضو أما قريقو إنو عديدي كنا قد قيسك أما إنو قاديدكو كحماضو أفرتاسي النبي يقول صلى الله عليه وسلم nolosha ciliidi iyo dhib bay gelisaa oo sacaadadii iyo xasiloonidii bay baabi'isaa qodobka sagaalaad wax weeyaan maadaama bini aadamku uu yahay khata mid gaf badan oo haweentuna waa bini aadam ninkuna waa bini aadamkana dabeecadiisu wax weeye inuu gafo inuu xadgudbo inuu khaldamo waa inaad ogaato cidda la mucaamaloonaysa inay tahay bini aadam gaf badan إذن ugu talagelin inaad malaa'ig la mucaamaloonayso inta badan waxa dhaca intaan la isu imaanin oo la isguursanin oo banaanka la kala joogo oo abawii abaayadu ay socoto oo muxuu ahay waan ku jeclahay iyo waan qalbigayga ku gubanay hawshu intay socoto waxaad moodaa marka la isu yimaado in malaa'ig gabadhuna waxay sawiranaysaa wallahi ninkan sidan u hadlahay afta khatarta malaha wax weeye khalad ka imaan maayo isaguna wuxuu isleeyahay khalad ka imaan maayo sawirka hadaad guri ku tagto waa waxa ugu horeeya guriga burburiyo waa inaad ku talagasho ruuxan waa bini aadam khalad baa ka imaan afkiisa adinkiisa dhaqankiisa khaladka ka yimaadaayay maxaa xal amar sabir waa qodobkaas guriyaha waa in loo sabro waa inay haweentu ninkeeda u sabirto waa inuu ninku xaaskiisa u sabro وإن دبت يعني خلادات كرعية أن لقى فعل قاضي وح واحد شيء له تغافل كوحل هذا اسمه جيسين هذا نقطة أن خلاد يرمركض أركتبه أن أدجبته وتحملي ويده
oo aad kala dul dhacdo ruuxii khalad ka sameeyay ruuxa laftiisi waa dhibsanaya saas daradeed marar fara badan waa laga indhalaabtaa khaladkii oo dhacay adigoo lagugu khaldamayo baa haddana taqaaful la sameeyaa yani waxa weeyaan kaana adoon ka warhaynin oo kala la iska dhigaa allahumma hawshu inay gacanta ka baxdo mooyaan marka aad u baahato inaad baraarujiso mooyaan laakiin mar kasta wixii dhacay khalad hadaad la soo boodo noloshu kadeed bay noqon waa la isku rafaadi sidaas daraadeed sabirku waa laga maarmaan oo labada dhinacba in la isu sabro maxaa yeelay allah tabaaraka wa taala aadamahan saasoo ugu talagalay nabi maxamed oo garanaysan salawaatu rabbi wa salaamu alayhi inuu sayyidul bashar ahaa akhlaaqda ilaahay u dhameystiray saxaabadii dumarkiisii ummahatul mu'miniin oo dumarka ugu qiimo badnaa ayaa marmarka qaarkood wax dhici jireen marmarka qaarkood baa la isqoonsan jiray haddana maca dalika sabirka iyo dulqaadkaasay howluhu ku socdeen waa in marka guryo isu dulqaataan oo sabir lagu maamulo way guryaha saas daraadeed baa rabbigeen tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi wastaciinuu bisabri wassalaa salaada iyo sabirka kaashada salaada iyo sabirka kaalmaysta baa Allah tabaaraka wa tacaala qodobka ugu dambeeya tobnaadi waxa weeye oo gurigu inuu guri degan oo xasiloon noqdo ka qayb qaadan kara inay labada ruux dabeecad ahaan isu fahmaan waa inaad ninkaaga akhrido oo akhlaaqdiisa akhrido dhaqankiisa akhrido dabeecadiisa akhrido wuxuu qoonsado akhrido wuxuu jecel yahay akhrido sidoo kale ninkuna waa inuu xaaskiisa akhriyo markii la isfahmo isfahamkaasi wuxuu ka bilowdaa nolol degan oo xasilooni laba ka bilaabata u fiirsada nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ummul mu'miniina Aisha wuxuu ku leeyahay inni la a'rifu ghadabaka wa ridaaka Aisha anugu waan ku garan markaad xanaaqsan tahay iyo markaad faraxsan tahay raali tahay adoon ii sheegin baan ku garan buu nabiga sallallahu alayhi wasallam markaas waxay tiri wa kayfa ta'rifu dhaka ya rasuulallah oo seed ku garan bayt oo urku baalata ma qalbigayga waxa ku jiraad garan kartaa seed ku garan inaan xanaaqsanahay iyo inaan faraxsanahay muxuu ahay aan muxuu raali ah markaas wuxuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam u fiirso wuxuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam Aisha markaad raali tahay oo faraxsan tahay waxaad tiraahdaa balaa wa rabbi muhammad maya muhammad rabbigii baan ku dhaartay baad tiraahdaa muhammad rabbigii baan ku dhaartay markaad yara xanaaqsanto lagugu jirana waxaad tiraahdaa laa wa rabbi ibraahim ibraahim rabbigii baan ku dhaartay baad tiraahdaa markaad faraxsan tahayna magaca nabiga sallallahu alayhi wasallam bay sheegtaayo rabbigii bay ku dhaarataa rabbi muhammad markay waxoogaa yara wax qoonsatana magaca inta isaga tagta nabiga magacii awowgii ibraahim bay markaa aadaa markaas waxay leedahay ibraahim rabbigii baan ku dhaartay marka soo kuma aqaano waan ku gartay markaad xanaaqsan tahay iyo markaad faraxsan tahay ku kala gartay markaas waxay tiri Aisha radhiyallahu ta'ala anhuma waxay tiri ajal lastu uhaajiru illa ismaka wa runta bi rasuulillah wadi fahanti magacaaga baan ka tagi mooyee idan maxaa kaloon samayn karaa wayt ya kaama tagi karo meel kale ma aadi karo laakiin waxa ugu badan samayn kara waxa weeye magacaaga intaan bedelo oo aabaha ibraahim inaan uu magacaaga ku bedesho oo ibraahim booska soo gashado magacaagiina isaga tago inta baan samayn karaa marka xadiidka maxaa laga fahmayaa waxa laga fahmayaa nabigu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi xaaskiisa uu akhriyay uu garanayaa uu fahansan yahay markay xanaaqsan tahay iyaduna sidoo kale way taqaanay nabi maxamed salawaatu rabbi wa salaamu alayhi saas daraadeed waxa soo dhaweyn kara waxa kamid isfahamka iyo guriyuhu inay noqdaan guriyo liibaan iyo xasilooni iyo deganaansho ku nool waxa kamid labada ruux inay isfahmaan markaad ruuxa fahantana meelaha iyo pointiyada ضعفiga uu ka leeyahay daciifka ka yahay iska ilaali meelaha uu ka fiican yahay tanmiye iyo xooji meelaha uu ka danqanayo nabarada ka ilaali waxay keeni karaysaa isfaham iyo xasilooni guriyuhu ku wada noolaadaan waqtiga dhamaaday 10ka qodob ayaan ku tilmaamay insha Allah ta'ala asbaabta keeni karaysa guryaha inuu noqdaan guriyo degan xasiloon liibaan leh intaan aakhira la gaarin ba aynu ku nasanno awlaad khaar qabto barakaysan aan ka helo inaguna nolol macaan oo qabow oo kalgacayl iyo naxariis ku salaysan inaynu ku wada noolaano jazakumullahu khayran wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وحين مدقلين إن شاء الله تعالى أنت إنه قد لمن ساعدي يا شيخ وقلت لك اللي شيخ قبل أن يقول هذا السلام عليكم شيخ وحد يقول أنت هدي وننكو وناقبه ونقول دارته إنه سناقبين سوى قبه وحي حكم كيسا السيد ده هدوبك ويرمقه حاول ده وصعط هذه ما السيد ده هدي سو هذا بين صومر الحديث كالنبي صلى الله عليه وسلم له يا إذا ظننتم فلا تحققوا حديث ظني يتهم إذن قش هذا بقى لنا حقيقي هيسدي يا ولا تجسسوا هيسدي بقى لنا هذا واحد جيران يقع بس كصوبيح دونه وذاتك حدادسك كده waxaa aad ii cajabisay gabadh la ii sheegay qisadeeda waa qiso dhacday gabadh baa waxaa loo sheegay ninkaagu haweeney qarsoon buu qabaa haween baa u qarsoon way ogaatay wayna xaqiijisay inuu haweeney qarsoodi ku qabo markay ogaatay shib bay u tiri maba ayna la soo qaadin maba ayna dareensiininba hadhow waxa lagu yiri waa lagula guursaday maxaa meesha ku dhigay hadad arinta ogaatay maad kacdidood masayrtido ugu yaraan maad waxoogaa ka daadsatid ya xogaa masayrtira xataa ma ka daadsatid gabadh caqli badan baa waxay tiri hadda haddaan boodboodo oo qaylqayliyo oo ninkii aan kuleetiga ku dhago oo barri la yiraahdo waa jirtaa waanan qabaa waana xaaskaygii oo banaanka ay u soo baxdo soo ma iimaanayso laba mid inaan ninkii isweyno oo inaag dib ka timi ninkayga iga qaadato iyo in habeenada layla qaybsado soo labada mid iimaan maaya sidaas daraadeed waxay tiri habeenadeedo dhan anigu aan haysto isaguna meelaha dhuuntay tiri maalinkii maxay yeeli hadduu meelaha dhuumaalaysanahay ya gabadh aad u caqli badan bay cajab badan sidaas daraadeed dabagalkan faraha badan iska daayo oo waxyaalaha nolosha kharaarayay ka mid tahay tuhmadii waswaaskii aan ka hadlaynay bay ka mid tahay wixii banaanka u soo baxa wixii hawshiisu leeyahay laakiin wixii aan banaanka imaanin dabagalka iyo tatabbuca iyo faraha isaga qaada wallahu a'lam جزاه الله خيرا. سؤال شغلان قبل المحيط الشيخ ويدي باكل رجاليوتي قبل قدنا وابا باي حد ما أصمين كرا يعني علامة الوقت أبوصل قبرك لما تسكره النبي قوار النبي صلى الله عليه وسلم قورته إلا الرسول إلا النور هذا يوم وديدي أنت أقول بدن الله سمين كرا قبرك عرضي لقصه صاري أنت بلوجو عليه عرضنا سيدا كرسك جيلو كلا سيدا هذا سمينه كرلو يرقى ضحير وتاكا أو كلا عرضها سي هذي باب عضي وقبرجي ودمي عروا لوجو علين كراسي قبرجي قبري أهان لوجو قرط لأن قبرجي مسلم كذاتك مسلمين تقبور تود احترام بيلاد مرك قبري أهان لوجو قرطه لوجو ما يستاجي كرو لوجو ما فريسن كرو لوجو حاجة جودن كرو احترام كودي لي هدي مركع عردي أي دنتي عردي ولا تستوسين كرا أما اسمه قبرك كوركي صلى الله عليه وسلم نبي وادي صلى الله عليه وسلم هذه مسألة علامتها هاي وحتكون سمين كرتا علامات القرآن هاي مثلا الآن أتكتكتو علامات أتكو أقنصته دقح أتصارته مثلا هاي مدحيس أتكو أقنصته وحتكو أقنصته القرآن هاي نبي قوي كسوغان صلوات ربي وسلام عليه قرآن كان وانا ديدي قبورته كوركي هذا يوم حلقو قرأ أيضا وأري النبي قال ديدي صلوات ربي وسلام عليه والله أعلم جزاهم الله خيرا. شغلنا محيط هاي محيط انت اسلامك كقبتها تمها قيمة إلى خير وقيمة إلى الداية ويلاش أنت أكو أوجينا قبلينا ما سمعنا ويلاش هلو أوجينا يتشجع حيري يا حيري يا سميان ملا وحوي قبله ملهم في ليه إن تمها إن قار لحير قارن للداية نبي قوادي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع نبي وحو الربي قزع قزع واحد إلى هذا انتمها قارن للريبو قارن للداية
qaarna la xiiro waa reeba rasuulku sal alla alay wasalam marka ma bannaana ama wada xiira ama wada daaya rasuulku sal alla alay wasalam carruurtaa loo samayn jiray waagii hore qaabkan hadda dhallinyarada wiilashu ay ka dhigtaan nooc ilbaxnimo iyo horumarka ay moodaan waagii baadiyaan annaga ku korray baadiyaha waxaa la samayn jiray wiilasha dhowr yar baa loo reebi jiray dhowr yar intan iyo inta laga soo xiray dhowr yar baa loo reebi jiray gabdhahana timahooda dhexda inta laga xiiro baa intan kore loo reebi jiray xoogaagii aanu 40 sano ka hor baadiyaha ku naqaanay bay hadda wiilasha magaaladu moodeen in ilbaxnimo tahay horumar soo kordhay bay u qaateen marka timaha ama ilmaha noqdo ama ruux weyn ha noqdo ama wada xiir ama wada daa laakiin qaar xiir qaarna daa nabigu waa diiday salawaatu rabbi wasalaamu calayh wallahu aclam جزاه الله خيرا قبل وحنا السلام عليكم شيخ قف بارنتي وحكتك حول بدن المرء حاليا مثل ما لها حوالي اسم الله صدقين كلام حاليا ما لم hadduusan lahayn cid dhaxasha waaba qariib ruuxaan wax dhaxla lahayn xoolaha waxaa la geynayaa haddii muslimiintu ay leeyihiin dowlad bangiga dhexe ama xoolaha baytulmaalka meesha la yihahda la geynaya muslimiinta oo dhan baa dhaxlaya iyagaa intifaacsanaya hadduusan jirin dowlad noocaasa iyo hay-ado noocaa u samaysan oo lagu wareejiya haddaynan jirin waa la sadaqaynaya masaalixda caamka danaha guud ee muslimiinta ayaa lagu bixinayaa ceelal masaajid caafimaadka meelaha caamka ah dadka dhibaataysan oo la siiyo iyadin ruuxiina sadaqay u noqon insha allahu tacaala dadkaas mu'miniinta abaana dhaxalkiisa iska leh walmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaau bacdin cid kaloo uga sokaysa marka la waayo dadkaa walaalihii ee diinta walaalaha ku yihiin baa xoolihiisa iska leh iyagaasaa intifaacsanaya wallahu aclam جزاه الله خيرا وقتي أنا كنا إن شاء الله تعالى سؤالها كله علماء كنا نقول دون أمديا وإنه قيبته وقيبته يقول رئيس محمد درسي سياق سونا قلنا ما ذي حين أوجد إن شاء الله تعالى الدكتور محمد شيخ حسن درسي سي أمديا الله إنه وخصوصا مرحلة تي إتش كأما هو مرحلة أو قفته وقان جاري يوم هو هاي ولا بقى أخرين يقول الدلالة إن شاء الله تعالى تصير وقت بارك الله فيك